wasiirka wasaaradda beeraha Somaliland Axmed Muumin Seed ayaa sheegay in gobolada bariga Somaliland ay ku soo waajahan yihiin roobab duufaano iyo dabeyl wata oo la saadaaliyay inay ka da'aan deegaanadaasi waxaanu wasiirku ka digay khatarta ka dhalan karta isagoo baaq u diray bulshada ku nool deegaanadaasi waxaanu hadalkan wasiirku ka sheegay kulan xog waraysi ah oo uu la yeeshay guddiga joogtada ee golaha wakiilada Somaliland saaga agaasimka waaxda saadaasha awood wuxuu ugu wargeliyay in bilaha nimka soo socda bisha 10aad iyo bisha 11aad roobab ay hadana dib u soo curanayaan hayna u badanayaan dhinaca muxuu ahaayay bariga Somaliland marka waa in dadku sool iyo sanaag iyo sool ilaa iyo muxuu ahaayay sool iyo sanaag bay roob ku badanayaan marka dadweynaha deegaanka waxaanu ku buurinaynaa inay roobabka ka faa'iideystaan oo ay ku dadaalaan sidii roobka looga faa'iideysan lahaa runtii roobkaasi xalay bay zanaag way ka bilaabmeen waxoogaa yar oo dabayl ah bay wataan marka taana dadku waa inay taxadir badan sameeyaan oo waliba dhinaca badda oo kale u badan marka waaxda saadaashu saaka warkaas ay soo gaarsiiyeen marka dadweynaha waxaan kula talin lahaa in meelaha baddana inay ka fogaadaan hadda waxa soo bilaabi doona iyaguna weegaga soo socda kulayl xad dhaaf oo saadaasha awadu saaka nagu wargelisay kulaylka xad dhaafkiina uu iman doona kulaylkaas wax oo imka maalmaha bilow inagu ah kaasina wuxuu salka ku hayaa inuu roobabku xagga dambe ay ka fiicnaan doonaan waxa kale oo uu ka hadlay kulankii uu la lahaa guddida joogtada ee golaha wakiilada Somaliland iyo waxa uu daaranaa saaka waxa han kulanay oo noo yeeray guddida golaha gudoosaadka golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland oo runtii xaq u leh inay wasiir walba iyo wasaaraddiisa ka wareystaan halka uu wax marayaan marka guddidu iyagoo fulinaya qodob distoria waxay qoraal soo direen 2 maalmood ka hor waxay nagu wargeliyeen in maanta oo zalaaza 25 bisha aan hor imaado gudoosaadka golaha wakiilada si ay wax iga weydiiyaan wasaaradda aan wasiirka u ahay ee wasaaradda horumarinta beeraha marka dhankiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida joogtada ee golaha wakiilada Somaliland waxaanu faahfaahin ka bixiyay kulankan ay guddida joogtada ahi la qaateen wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland joogtada annaga u yeedhnay wasiirka beeraha annaga u yeedhnay wasiirka beeruna uu soo ajiibay guddidan waxa guddida joogtada waxaana guddida joogtadu mas'uul ka tahay inta fasaxa iyo golweynaha mas'uul ka tahay wasiirku waxa weeye wuxuu siiyay wasiirka oo aad iyo aad runtii u dadaala oo imka aad u dardargeliyay muddadan uu joogay wasaaradda beeraha oo wasiirka aad iyo aad runtii u dardargeliyay ajiibka waan uga mahad celinaynaa waan isugu nimin waxayd xog waraysi si fiican ayuu warbixintii noo siiyay annana waan ku qanacnay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa wasiirku inuu dadaalka halka ka sii wado ayaan ku boorinaynaa hawshaasina si fiican ay noogu dhamaatay cali maxamed xuseen telefishanka saab hargeysa